hooyada federaalka ah boosaasu waa hooyada Puntland marar badan baa lagu caasiyay ayuu yiri laakiin anigu ma noqon doono wiil hooyadii ku caasiya boosaasana kuma caasin doono ereyadii uu ku ololeynayay ayay kamid ahayeen waxaana muuqata maantay aan taaganahay oo marqaanti nool ah in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu ku caasiyay uu noqday wiil ku caasiyay magaaladii uu ka soo jeeday isla marhaantaasna uu colaad ka horiyay waa sax Baydhabo jiro waa yimi taa macnaheedu waxa weeye markuu Baydhabo jirana qorshahana qayb buu ka ahaa isaga wadanka madaxweyne u ah hadeer uu yimi oo Puntland uu soo garana dabcan mas'uuliyadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii meesha ka dhacay mas'uuliyadeeda isaga leh maadaama ismada reer Puntland ay kamid yihiin laf dhabarta jiritaanka reer Puntland ay dastuurkana qodob muhiim ah ay kaga jiraan xalkii ay soo jeediyeen oo madaxweynuhu uu ka talaabay iyo dhamaan saraakiisha ciidanka iyo wasiirka amniga oo wasiirkii maaliyadda oo dabcan wasaaradda amniga buuxinaya oo shirkii amniga isugu gudoominaya wasiirka amniga oo ah wasiirkii maaliyadda ayuu wuxuu hogaaminayaa shirkii amniga ayuu hogaaminaya waa habdhaqan marka nagu soo kordhay oo runtii aad noogu cusub qorshahana waa qorshe ku aadan waaniga hore kuugu sheegay in gobolka bari xildhibaanadiisa la boobo laba waxa weeye nafac iyo maal ku jira hay'adda sida la sheegayo in xubno Arajan qoysaska labada dhinac Arajan iyo madaxweyne Deni in si gaar ah loogu leexiyo oo loogu naasnuujiyo arimaha marka isbiirsadeen ninka xaq u diray ninkii cadaalad ma taqaana dulmiga wado dadku way kala yaqaanaan sababta arintan waxa ay jawaab u tahay dagaalkii BDG lagu qaaday saarisen nimankii shirkadda lahaa lagala wareegay oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo kooxdiisaba ay duulaan ku qaadeen ayay maanta jawaab u tahay in ma taqaana ay nafac raadis yihiin ayagoo ku soo gabanaya ciidanka ayaan dib habeyn ku sameeynaa aad u mahadsantahay waayahay aad u mahadsantahay Kashwiito qaybihii dambe soo gaaray waxaan rabaa BSF sida laga warqabo muddo dhowr iyo 10 sano ayay waxay ahaayeen kuwa difaacaya deegaanada Puntland gaar ahaan dagaal adaga waxay kula jireen kooxaha ka soo horjeeda siyaasadda dawladda Puntland iyo waliba midda dhexe ha noqoto kooxda shabaab iyo kooxaha kale ciidankii sida u difaacayay Puntland nabadgelyadeedii iyo horumarkeedii ka talinayay xilligan in ciidamada daraawiista Siciid Deni u adeegsado maxay ka macno tahay waxay ka macno tahay inuu Siciid doonayo Puntland inuu meel maran uga tago waxay la macno tahay iska daa Puntland runtii mucaarad anigu waan ahay mucaarad iyo rag badan oo saaxiibaday ah laakiin habdhaqanka ama maamulka Siciid Deni kaliya Puntland caqabad kuma ahan wad ogtihiin Soomaaliyeed xitaa caqabad buu ku noqday oo qayb weyn buu ka ahaa doorashada maanta madaxii majaal lahayn meel maanta ay